daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya. James Swan iyo safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya oo durbacdaadis ku bilaabay qoor kulmana la qaatay Axmed Madoobe oo war ka soo saaray dacwadda badda Soomaaliya iyo Kenya. wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya oo ka hadlay arrimaha badda Soomaaliya iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay badda Soomaaliya. haddii aynu ku bilowno beesha caalamka ayaa cadaadis xoogan ku bilowday madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor saacado kadib markii uu Muqdisho soo gaaray. wakiilka xogahayaha guud ee qaramada midoobay James Swan iyo safiirka Mareykanka Soomaaliya u fadhiya ayaa labaduba si kala duwan ula kulmay madaxweyne Qoorqoor waxaana ay kala hadleen xaaladaha doorashooyinka. qoraal ay madaxtooyada Galmudug ka soo saartay kulanka James Swan ayaa lagu yiri madaxweynaha Galmudug iyo ergeyga gaarka ee James Swan ayaa ka wada hadlay dadaalada beesha caalamka ay ugu jirto qabsoomidda shir loogu dhameystirayo arrimaha doorashooyinka gaar ahaan heshiiska 17 December 2020 ee Muqdisho iyo shirarkii gudiyada farsamo ee Beedhabo ku soo gabagaboobay 16 bishii Febraayo 2020. madaxtooyada ayaa sidoo kale kulanka safiirka Mareykanka waxa ay ku sheegeen madaxweynaha Galmudug iyo danjiraha Mareykanka ayaa ka wada hadlay dadaalada beesha caalamka ay ugu jirto qabsoomidda shir lagu dhameystirayo arrimaha doorashooyinka gaar ahaan heshiiskii 17 September 2020 Muqdisho iyo shirkii gudiyada farsamo ee Beedhabo ku soo gabagaboobay 16 Febraayo. ilwareedyo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in Swan iyo safiirka Mareykanka ay labaduba ay ku cadaadiyeen Qoorqoor inuu aqbalo shirka ay beesha caalamka garwadeenka ka tahay ee ka dhacaya Xalane oo shaki uu ka soo galay in shirkaasi beesha caalamka Qoorqoor villa Soomaaliya ay cadaadis ku saareyso una ka soo qayb galinin. Qoorqoor oo ka mid ah madaxweyne goboleedyada taabacsan dowladda ayaa waxaa la aaminsanaa inta uusan soo gaarin Muqdisho in uusan ka qayb galin shirka Xalane ka dhacaya iyadoo ilaa hadda aan la xaqiijin karin in Xalane shirka ka dhacaya uu ka qayb galaya Qoorqoor iyadoo sidoo kale beesha caalamka madaxdeeda ee safiirada ah iyo sidoo kale Swan ay kulan la qaadan doonaan marka uu Muqdisho soo gaaro madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen. dhanka kale haddii aynu eegno madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dacwadda kiiska badda oo shalay ka furmay maxkamadda ICJ ee magaalada Hague. Axmed Madoobe ayaa sheegay in xukuumadda iyo shacabka Jubbaland ay garab taagan yihiin sidoo kalena rajo weyn ay ka qabaan in ay guuleysato dalkeena dacwadda baddana ay noqoto dacwad mar kale la isugu soo laaban. waxaan garab taagannahay qareenada iyo xubnaha kale ee maalintii saddexaad u taagan dacwadda badda ee nagala dhaxaysa Kenya ee taala xarunta maxkamadda cadaaladda adduunka ayuu yiri Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland. waxa uu intaasi ku daray waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay si wada jir loogu midoobo difaaca baddeena taasoo ah mas'uuliyad saaran muwaadin kasta oo Soomaaliyeed waan guuleysanaynaa insha Allah. ugu dambeyntii waxa uu madaxweynaha shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ugu baaqay inay u midoobaan sidii ay u difaacan lahaayeen badooda iyagoo wada jira sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland. magaalada Hague ee dalka Holland ayaa waxa mar kale ka sii socon doonto dhageysiga dacwadda ee u dhaxaysa dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyadoo dowladda Kenya ay muran gelinayso badda Soomaaliya. dooda Soomaaliya ayaa halkeeda ka sii soconaysa sida ay sheegeen qareenada iyo sidoo kale mas'uuliyiintii dowladda ee halkaasi gaaray. dhanka kalena wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda badda Soomaaliya waxaana bulshada Soomaaliyeed oo ka codsaday in ay duco la garab taagnaadaan. wasiirka ayaa hadalkan ka horjeediyay dad ku sugnaa degmada Garbaharey oo abaaro halkaasi baahsan ay ka jirto. inaad sajaayad ugu fariisataan oo aad duceysaan ayaan idin farayaa si aan ugu guuleysano dacwadda baddeena ayuu yiri wasiir Dube. wasiirka warfaafinta ayaa ah wasiirada hadda xilka haya kuwada ugu meelka adag dowladda federaalka Soomaaliya ayaana xooga saareysa sidii dacwadda badda ay ugu guuleysan lahayd. dhanka kalena haddaynu eegno bari waxaa bilaabanaysa maalintii saddexaad dacwadda u dhaxaysa dowladaha Soomaaliya iyo Kenya waxaana jadwalku u ahaan doonaa sidii horey uu ahaa 5 galabnimo ayuuna bilaaban doonaa xilliga Geeska Afrika. bari mar kale waxaa doodaysa Soomaaliya qareenada oo socda iyo sidoo kale madaxda dowladda qaarkood ayaa hadlaya. Kenya ilaa hadda ma jiro
qof u hadlaya oo ay soo dirsadeen, waxaana maxkamadda cadaaladda adduunka ay diiday in 30 daqiiqo ay ku sharaxaan in ay ka baaqdaan maxkamadda ICJ. mar kale berito waxay noqon doontaa dhageysiga dacwadda badda Soomaaliya, qareenada Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka ka socota. Haddaba isha ayaan ku hayn doonaa wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya waa inaga intaa daawadayaal.